halkani waa waqooyiga Kuuriya, halkanina waa koonfurta Kuuriya. Labadoodu waxay leeyihiin cabir iyo qaab isku dhow, waxayna wadaagaan dhaqan iyo taariikh isku mid ah. inkastoo ay waxyaabo badan iska mid ka yihiin, haddana mar walba waa iskhilaafaan. laakiin maxay mar walba u dagaalamaan? maxaase Kuuriya uga dhigaya inaanay hal mid noqon ama hal dal? sababta la ilaawi ayaa ka yaabin doonta. Kuuriya waxay hoos imaan jirtay xukunkii Japan intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka. markii Japan isdhiibtay oo dagaalkii dhammaaday, Kuuriya waa la xoreeyay, balse waxaa loo kala qaybiyay laba wadan. wadihii guuleystay ayaana kala qaybiyay. Mareykanka ayaa khariirad ku sawirtay xariiq lagu kala qaybinayo labada dal oo 38 baaral ah. midowgii Sofiyeetka ayaa gacanta ku dhigay waqooyiga, halka Mareykankuna uu maamulayay koonfurta. dadka labada dhinacba waxay doonayeen in dalka dib loo mideeyo, laakiin mid walba waxa uu rabay nidaamkiisa shuuciyadda waqooyiga ah iyo dimuqraadiyadda oo koonfurta ah. sanadkii 1950 taangiyada waqooyiga Kuuriya ayaa ka tallaabay xadka si xoog ugu qabsadaan koonfurta. Mareykanku si degdeg ah ayaa u taageeray koonfurta. dhanka kale, Shiinaha iyo Ruushka oo markaas ka mid ahaa midowgii Sofiyeetka ayaa taageeray waqooyiga. dagaal maxalli ah ayaa si degdeg ah isu bedelay dagaal caalami ah. muddo 3 sano ah dagaalku waa uu socday, isagoo marba dhinac u janjeerayay. dad badan ayaa ku naf waayay, magaalooyin badanna si xun ayaa ugu burbureen. ugu dambeyntiina wax weyn isma bedelinba. dagaalku waxa uu ku dhammaaday ku dhowaad halkii uu ka bilaabmay xariiqdii 38aad ee xuduudda u ahayd, taas oo ilaa maanta weli kala qaybisay waqooyiga iyo koonfurta Kuuriya. ma rabtaa inaad online-ka lacag ka samaysid, dhaqaalena ka kasbatid adigoo mobilkaaga isticmaalaya, gurigaagana jooga? waxaad u baahan tahay 60 xirfadood ugu yaraan 2 ka mid ah inaad baratid. haddaba xirfadahaasi waa kuwee? waa AI-da, affiliate marketingka, cryptocurrency, digital productska sida online-ka loogu iibiyo, e-commerce-ga iyo freelancing-ka. haddaba sidee ayaad ku baran karaysaa? waxaa jira buugaag ku qoran luuqadda Ingiriishka. haddaba waxaa lagaaga soo koobay buugaagtaasi. mid kasta oo ka mid ah xirfadahana waxaa lagugu soo koobay luuqadaada Soomaaliga, oo waxaad helaysaa buug si tafatiran kuugu sharaxaya AI-da, affiliate-ka iyo xirfadaha kaleba. buugaagtan waxaad ku heli karaysaa iyagoo PDF ah oo e-bookska. mid kasta oo ka mid ahna waxaad ku helaysaa $1 oo keliya. haddaba $1 ayaad xirfadaasi oo dhan ku dhammaysanaysaa oo aad ku baranaysaa, sidoo kalena fikrad aad uga helaysaa, kunana shaqo tegaysaa. waxaad u baahan tahay keliya inaad nambarkan igala soo xidhiidhid, waxaadna 6 buugba ku helaysaa $6 oo keliya. waxaad ku baran doontaa tooliska muhiimka sida lacag looga sameeyo, farsamooyin iyo tricks qarsoon, sida aad uga shaqaysan karto meel kasta adiga oo jooga. dhammaan waxay kugu diyaarsan yihiin iyagoo e-books ah oo PDF ah. mobilkaaga ayaad ku helaysaa, isla markaana waad ku shaqo tegaysaa 6daasi xirfadood marka aad fahatin sida dadka online-ka uga shaqaystaan. hadda dalbo oo hadda hel nambarkaas shashada saaran igala soo xidhiidh.